Jubbaland ayaa waxa ay qorsheynaysaa weerar rogaal celis ah oo ay ku qaadayso gudaha magaalada Balad Xawe ee gobolka Gedo ka gadaal markii la magacaabay gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda gobolkaasi Gedo. Soo dhawaada hadday tahay markay kugu horeysay ee soo booqato halkan subscribe noo saar like garee muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada. Wararka ka imanaya gobolka Gedo waxa ay ku waramayaan in xaalad kale gobolka uu galay ka gadaal magacaabidii macallimo waxaana la tilmaamayaa in dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo hub urursi xoogan uu halkaasi ka bilowday. Tani ayaa timid ka gadaal markii maamulka Axmed Madoobe guud ahaanba uu dhameystiray sahayda iyo sanadooda ciidamo ka soo baxaya gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland waxaana ku jeedaan magaalada Dolow ee gobolkaasi Gedo. Jubbaland waxa ay muujinaysaa diyaar garow xoogan oo ay ku doonayso in mar kale ay uga rogaal celiso dagaal xoogan gudaha magaalada Balad Xawe ee gobolkaasi Gedo waxaana tallaabadaasi ay u gmatay Jubbaland inuu hogaamiyo macallin uu hore u soo hogaamiyay gobolkan xilligii dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ana la tilmaamayaa in markan la isaga horgeynayo gudaha magaalada Balad Xawe ciidamo ka kala socda Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ay kala hogaaminayaan macallin iyo sidoo kale Cabdirashiid Janan waxaana tallaabadan si weyn maalmihii ugu dambeeyay uga shaqeynayay Axmed Maxamed Islaam Madoobe hogaamiyaha maamulka Jubbaland waxaana la tilmaamayaa in ugu dambeyntii la magacaabay isla markaana markan loo diyaariyay ciidamadii uu hogaamin lahaa qalabkooda iyo sanadooda ciidan ayna ka dhaqaaqayaan gudaha magaalada Kismaayo. ila dhaxalgal oo madaxtooyada Jubbaland ku sugan waxa ay ku waramayaan in ciidamada laba qaybood loo kala dhigayo kubana la geynayo magaalada Ceelwaaq ee gobolkaasi Gedo halka kuba kalena la dhigayo gudaha magaalada Dolow halkaasi oo ay ka qaadayaan dagaal laba geesood ah isla markaana lagu wajahayo magaalada Balad Xawe oo Jubbaland ay u aragto xarun istiraatiiji ah isla markaana waxa ay doonayaan in mar kale ay ku laabtaan ciidamadooda gudaha magaaladaasi. dowladda federaalka Soomaaliya marba markii ka sii dambeysay ciidamo tirabeel ayay halkaasi ku daabulaysaa kuwaasi oo iyaguna ka kala socda qaybaha kala duwan ee ciidamada waxaana wararka laga helayo halkaasi ay tilmaamayaan in dhawaan halkaasi ay gaareen sanad ciidan hub iyo sidoo kale waxyaabo kale oo markaasi ciidamada u qaasa oo ay ka mid yihiin adeegyo caafimaad oo halkaasi la geynayo. diyaaradaha ayaana la tilmaamayaa inay ka degeen xero UK isla markaana lagu wareejiyay Cabdirashiid Janan. dowladdu waxa ay muujinaysaa diyaar garow xoogan oo ay isaga caabinaysa dagaalka iyo hub urursiga xoogan ee ay Jubbaland uga jirtay inay gacanta ku dhigto magaalada Balad Xawe. waxaa la tilmaamayaa in ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan gudaha Balad Xawe iyaguna qayb ka yihiin howlgalkan waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi guud ahaanba dhowaan hoosta laga xariiqay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo kala duwan ayaana durbaba gobolka ka bilowday halka sidoo kale ciidamadii ku sugnaa gudaha magaalada Mandheera ee ismaamulka Mandheera iyaguna halkaasi laga soo qaadayo si loo geeyo gudaha magaalada Dolow halkaasi oo ciidamo cusub la geynayo isla markaana abaabul cusub halkaasi laga bilaabayo si markaasi ay u wajahaan dagaal ka dhanahi ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. macallimo ayaa la tilmaamayaa in tallaabadaasi uu Axmed Madoobe u igmaday waxaana saacadaha soo aadan uu tagayaa magaalada Dolow si uu u abaabulo ciidamada halkaasi ku sugan waxaana wararka qaar aynu helayno ay tilmaamayaan in macallimo ay ka go'an tahay in guud ahaanba gacanta uu ku dhigo magaalada Balad Xawe dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi awgeed ay ka bilaabatay gudaha magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi Gedo halka sidoo kalena Jubbaland guud ahaanba ay diyaarinayso ciidamo military oo sidoo kale awood badan oo dowladda federaalka Soomaaliya kubeeda laga horgeynayo waxaana la tilmaamayaa in isubirat washa xoogan gobolka laga dareemayo xiisaduna waxa yeelanaysa wajiga kala duwan. abaabulkan ciidan ayaa la tilmaamayaa in imaaraadku uu ku lug leeyahay isla markaana xubin muhiim ah uu ka yahay ka gadaal markii maalmihii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan uu uga geynayay gudaha magaalada Kismaayo hub iyo sanad ciidan oo halkaasi laga dejinayo waxaana la tilmaamayaa in dabaabaad dagaal oo cusub oo markaasi horaan looga isticmaalay in gudaha dalka uu gacan geliyay Axmed Madoobe hub iyo sanad ciidan oo ay u badan yihiin qoryaha fudud iyo sidoo kale hubka darandooriga u dhaca waxaana la tilmaamayaa in dhammaantoodba Axmed Madoobe uu ku qalabeeyay ciidamada Jubbaland ee loo soo qaadayo gudaha gobolkaasi Gedo. diyaaradaha ayaana looga soo daabulaya halkaasi waxaana la geynayaa magaalooyinka Ceelwaaq iyo sidoo kale Dolow si markaas ay u sii ambaqadaan wajiga labaad ee dagaal ay ku galayaan dowladda federaalka Soomaaliya. dowladuna waxa ay doonaysaa inay iska caabiso dhaqdhaqaaqyo iyo hub urursi xoogan ayaana ka soconaya gobolka.
dadka ku sugan magaalada Balad Xawo ayaa cabsi xoogan ka muujinaya magacaabista Macalimo iyo sidoo kale in guud ahaanba markan ay wajihi karaan dagaal hor leh oo gobolka ka dhaca waxaana la tilmaamayaa in tallaabooyinkan is urursaday ay noqon karaan in mar kale dagaal uu ka qarxo gudaha gobolkaasi Gedo ka gadaan dowladda federaalka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo halkaasi dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday ciidamada Itoobiyaanka iyo kuwa sidoo kale Kenya ayaana iyaguna qayb ka howlgalka Axmed Madoobe uu qaadayo waxaana si janjeerahi ay u taageerayaan maamulka Axmed Maxamed Islaam Madoobe waxaana ay doonayaan inay ka hortagaan dhismaha maamulka cusub ee ay dowladdu ku dhaqaaqayso in laga yagleelo gudaha magaalada Garbahari oo maalmihii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan halkaasi uga soconayay waxaana la tilmaamayaa in tallaabooyinkaasi xoogan ee dhinacyadu ay wadaan iyo abaabulkaasi ay suura gelin karaan in mar kale dagaal xoogan uu gobolka ka dhaco dowladuna waxaa la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay xoojinayso dhaqdhaqaaqyada ciidan ee gobolka ka jira ayaa waxaa sidoo kale jira arrimo kale oo ay dowladdu ku baalwado taasi oo ah dhismaha maamulka halkaasi laga yagleelayo Axmed Madoobena waxaa la tilmaamayaa in tallaabadaasi joojinteeda wax waliba uu sameynayo waxaana wararka qaar aynu helayno ay tilmaamayaan in ciidamadan si weyn ay u qalabaysan yihiin waa kuwa dhowaan laga dejinayo gudaha magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi Gedo Garbahari ayay sidoo kale ciidamadu qorsheynayaan inay saldhigtaan isla markaana ay tagaan sida markaasi qorshaha Axmed Madoobe villadiisa laga soo abaabulayo ay sheegayaan waxaana la tilmaamayaa in qorshahan Axmed Madoobe uu wada guud ahaanba uu ku doonayo in guud ahaanba gobolkaasi uu kula wareego xiisada gobolka ka aloosanna waxa ay leedahay wajiyo kala duwan dowladda federaalka Soomaaliyana waxa ay doonaysaa in doorasho macmalahi ay halkaasi ka qabato isla markaana Axmed Madoobe lagu jibinayo waxaana ay doonaysaa beesha degta gobolka Gedo inay hogaamiso maamulka Jubbaland tallaabadaasina waxaa la tilmaamayaa in Axmed Madoobe iyo sidoo kale Xamza Cabdi Barreba ay ku kala tageen isla markaana waxaa la tilmaamayaa Xamza in ugu dambeyntii isagana uu garwaaqsaday inaysan suuragal ahayn in laga hogaamiyo Jubbaland magaalada Garbahari dhinacyaduna siyaabooyin kala duwan ayay arrintaasi uga shaqeynayeen waxaana la tilmaamayaa in maalmihii ugu dambeeyay ay guda galayeen taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaaga gudagalida dhismaha maamulka cusub ee halkaasi laga yagleelayo intaan la gudagalin Axmed Madoobe waxa uu diyaarinayaa qorshe dagaaleed xoogan oo uu ku kala taalayo dhismaha maamulkaasi waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba tallaabadaasi ay gudagalayaan saraakiisha dagaalka uu wakiishay ee gobolkaasi ka soo jeeda waa Maxamuud Sayid Aadan Lafey iyo sidoo kale Macalimo oo dhawaan isaguna la magacaabay waxayna noqonaysaa tallaabo culus oo dhinacyadu ay qaadayaan lama sooga halka ay saldhigan doonto